wareegga koowaad aad bilowday tartanka dadkii soo gudbaad ka mid tahay wareeggii labaad iyo kan saddexaad baa soo gudubtay waxaa isku soo haray adiga iyo Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mustafa Dhuxulow yaad codkaaga siin lahayd oo adiga aad u tanaasul lahayd haddii tanaasul timaado haddii tanaasul timaado waxaan u tanaasul lahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo Farmaajo ama Shariifka u tanaasul lahaa saddexdooda isku soo haray mid u tanaasul lagu yiri tanaasul lahayd waxaan u tanaasul lahaa Xasan Sheekh Maxamuud waayahay maxaad Xasan Sheekh Maxamuud ku doorbiday waxaan ku doorbiday aqoon baa u leeyahay saddex mar aan wada sheekaysanay marka asaga hadda waxa ugu cadcad lahaa Farmaajo laakiin aniga wareegyadaas waxay tahay ma aqaan laakiin u tanaasul lahaa wareegga saddexaad hadii la iga badsho Xasan Sheekh Maxamuud oo Farmaajo u tanaasul lahaa waa gartay waayahay madaxweynaha noqotay adiga ku guuleystay waa riya aan hadda sawirnayna adiga ku guuleysatay yaad ra'iisul wasaare ka dhigan lahayd dadka hadda musharaxiinta ah ee caanka la yaqaan musharaxiinta anina waxaan u fiirin lahaa aqoontooda musharax inay yihiin ma u fiiriyeen waxaan u fiirin adiga ama aqoon ku xulo ama si kale ku xulo yaad ra'iisul wasaare ka dhigan lahayd waxaan ka dhigin lahaa qof aqoon u leh conflict resolution qof bartay sida Abiy Ahmed PhD ugu haysto conflict resolution qof at least master or PhD haysta conflict resolution oo wadanka dib u heshiisiin u sameyn kara ayaan u dooran lahaa waa gartay si kale aan u dhigaa wasiir Dube Mahdi Guuleed Mustafa Dhuxulow hadda musharax madaxweyne ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasiir Fiqi oo galmudug u dambeysay wasiirka amniga ka ahaa laga qaaday xildhibaanka ah Daahir Amiin Jeesow يا عبد الرحمن أدوى أنت سيا وزير كديجان لهاد وزير كواد وزاريات كديجان لهاد aqoontooda u fiirin lahaa interview baan la yeelan lahaa marka interviewgaas qofkii ugu aqoon badnaado ayaan ra'iisul wasaare ka dhigan lahaa waqti laakiin mid la jeclaan lahayd ma jira oo shahaad ahaantiisa alla dhacsan tahay wallahi ma wali ma decision ma ka gaarin taas warnanka ma hayo laakiin qofkii ugu aqoonta badan oo ugu way aragsan ayaan ka dhigan lahaa ra'iisul wasaare waa gartay wayahay dadka sportska dhanka sportska markaan hadaan aadno yaa taageertaa koox ahaan Arsenal aan taageeraa kooxda Arsenal taageertaa fankooda America markaan joogo Arsenal iyo Chelsea iyo waa daawan jiray Premier League Arsenal aan ugu jeclahay waa gartay aduu ma dheeli kartaa kubadda ma dheeli jirtay caruurnimadeedu waa dheeli jiray markaan Muqdisho ku noolaa booskee ka dheeli jirtay 11 وقت من لاعب أهد مركز أو كبد أد ويقانا واجع لا لاعبنا واجع لا قلب البوعي أرجره هذا قلب داف أما قلب البوعي أرجره ضدك الله صفوا لو بلا هاف تايم كهر ما هنجرت في ضد الله كان هنجرت ولا ضدك الصفقة هرا هنجره صفقة الله كان واقرت marka laga soo tagay 11 intee kala jeclayd ana ka dheeshay 7 inaan ka ciyaaro waa jeclaa cornerada aan soo jiida aan goosha keeno goalkeeper isku tiina dad goalkeeper weligay ma noqon goalkeeper ma jecli waa gar salaxyada oo kale markii lagu dheelay hadii goalkeeper lagu istaajiyo kala ka waran wallahi ayadana waa post waa gartay wayahay dhanka fanka aan soo yaacnay fanaaniinta ragga ah oo Soomaaliyeed يا كتاجرتا فنان كي تاجرتا الكعس قيس أو راب كتريه واقرتي يو نمعدرين يو فرحية فيسك يو كواسان جعله واقر دمر كان نمعدرين فرحية فيسك جاشة الكعس يكون صولا بيه وح يصولا شرماركة وميت كان يرو شرم بوي شرم واقرتي وحالي الهرسل وصاحبك يجي شيء مركا إيمي ذا اللي شيء إنه هيسا في عينه هي دني نو هيسو قاضي دني العكسي ما هاي ما كان شرم هيسو قاضي دني هذا جعلان لدنو هيسو قاضي وجعلان لها واقرتي شرم بويغا أما إلك عساه هيسو هذا ميت كم إذا ما تقعنايو ما حسست I'm not good at it ممكن يعني ما وجعلها هنا اسكت داوضه هسي هورا كوي كتايرتا مركو فنانينتي هورا طبيعي حسن أنا سمت دتك هورا حسن أنا سمت وجعلها هيسيس ما كتقعنا مكان دمع جري شنيتهم مكان دمع قول لسوا كعي هيستا سجعله واقرتي ما حير من أول وغان كتايس عدك ما وقت دارا يقول دم بس ما حسست هذا وإلا بهيس ياشي سمت رئيسا مد أكتقانا مجرت عيسا أكتقانا
ولا ما حسست هذا صد سنة كم غنا ودنك كيسيه سومالي ولي ما حسسته